بروفيسور كسر تلفزيونka qaranka Soomaaliyeed maanta waxa uu galay maalintii saddexaad ee looga hadlayo shirka waxbarashada qaranka qodobo dhowr ah oo ku saabsan mustaqbalka waxbarashadeena iyo sida loo hormarin karo iyo sida loo tayeyn karo maanta maalintii saddexaad waaye ajendayaal dhowr ah ayaa laga hadlayaa oo sida goobaha waxbarashada loo hormarin karo sida dadka baahiyaha gaarka qaba waxbarashada loo gaarsiin karo marka bal kulanka maanta ka waran bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan u mahadnaqayaa TV-ga qaranka iyo adeegayaashiisa marka xiga waxaan salaamayaa dhammaan Soomaalida naga daawan doonta dunida dacaladeeda sax waaye maanta waa maalin saddexaad oo loo fadhiyo dhisma qarameed macnaha waxbarashadaani waa dhisma qarameed waa tii lagu abuurayay muwaadiniin Soomaaliyeed oo aaminsan oo leh garasho iyo wacyi u sheegaya inay yihiin hal mujtamac hal bulsho hal ummad inay yihiin oo dadka midaynaysa qulubtooda iyo aqligooda taas horta loo jeedaa waxbarashada loo jeedaa tan kale waxay tahay dadka oo horumaray ama ummadaha horumaray dadka oo baahiyaha gaarka qaba haday tahay aragga haday tahay maqalka haday tahay xubnaha socodka haday tahay garashada waxay u sameeyeen adeeg waxbarasho oo gaar ah haday tahay tababarka macallimiinta haday tahay syllabuska ama manhajka loo dhigayo haday tahay meesha loogu dhigayo iyo waxay isticmaalayaan laakiin maanta Soomaaliya kii ahay baahida gaarka ahay qabay iyo kii caadiga ahay dhamaanteen meel banaana oo ciida ayaa nala because waxay tahay saaka Soomaaliya 3 milyan oo ubada oo Soomaaliyeed oo ay ahayd saakay inay ayagoo uniformka waxbarashada qaba iskuulada aadaan hoose dhex iyo sare ayaan saaka aadeen waxbarashadii ama xiriiq wuxuu dibadda ku jireen ama ku gudaha ku jireen ama tuulooyin iyo meel adag caafimadeena waxbarashada lahayn ha joogeen marka waad galan kartaa boqolkiiba 70 ayaan ubadka Soomaaliyeed saaka waxbarashada asaasiga basic education aan haysan marka task force-ga ama shaqadan horta Allah hadaan nahay Soomaali waa mid aad u ballaaran oo yaani ay tahay in sidaan hadda looga hadlayo kaleeto sanad kasta looga hadlo sababtu waxay tahay marka qaranka la dhisay qaranka waxa loo dhisaa dadkana asal dhisaa say qaranku dhisaan qaranku ma dhismi karo hadaan dadku dhismi lahayn macnaha waxaan ka dhigantaa macnaha 60 sano ee la soo dhaafay ee Soomaaliya marna dawlad macmala ahayd marna ay jabhado iyo kooxo isdagaalamay ay ummadda hortaagnaayeen ma suurtagelin ubadka Soomaaliyeed marnaba inay waxbarasho sax ah helaan taas waa mid keentay dadka Soomaaliyeed inay aad u kala durgaan sabab wax mideeya ma laha markaan hadii hawsha la qabanayo waa hawl fiican waxa si fiicnaa lahayd in lagu daro hawsha la qabanayo oo wasaaradda waxbarashada ay ka shaqeyso waxa la dhaho national education policy siyaasadii waxbarashada ee qaranka dadka hadii la isku keeno waa doodaynaa waa kala tagaynaa aniga maanta tusaale maanta waxaan kamid ahay banalka ka hadli doona meeshaan kamid ahay laakiin after tomorrow waa kala tagaynaa laakiin waxaad rabaa education policy guideline oo dalkan jiri doona ilaa qiyaam saaca in la diyaariyo si dadkan iyo dalkan dhibaatada looga saaro sababtu waxay tahay meesha waxaana dhigay waxbarasho la'aan ama waxbarasho xumo waxa kale oo shirku oo diris garanaya waxa jirta wax oo waxbarasho u laakiin waxbarasho aan ahayn macna ubad fara badan saaka laga yaabo inay iskuul aadaan ama meel wax lagu barta aadaan laakiin waxaas ay soo baranayaan wax nafciga u leh ma ah waxa laga yaabaa marka qaarkood inay dhibaato u keenaan ninka isqarxinaya nin ma inta hor fadhiistaa wuxuu soo sheegay marka waxbarasho ahayd wax uu sheegay marka laakiin taas waxbarasho sax miya ma ah isqarxiskuna hal form ma ah musuq waa waxbarashada musuqa aan ka reebin waxbarasho ma aha waxbarashada aan ku bareen Soomaalinimada waxbarasho ma aha waxbarashada digdigtigaaga iyo karamkaaga iyo sharaftaada inaad ilaashato aan ku bareen waxbarasho ma aha waxbarashada aan xurriyadda dhiirigelinayn waxbarasho ma aha waxbarashada ku dhisan cabsigelinta iyo cagajugleynta waa nooc kamid ah terrorismka ama argagixisada marka waxyaabahaas dhamaa meesha yaalo rabaa in laga hadlaa loo baahan yahay shirkan muhiimad nuucee ay u leeyahay maadaama isku yimaadeen culimadii aqoonyahanadii wasaaradda waxbarashada kuwii dawlad goboleedyada aqoonyahanadii dhamaan kulanka maadaama goobjoog ay ka yihiin muhiimad nuucee ay u leeyahay deegaanadii qawaarijta laga saaray oo waxbarashada aysan ka jirin muhiimad nuucee ay u leeyahay maya kani meel khawaarij laga saaro dhan kaliya maaha Soomaaliya dhan baan waxbarasho ka jirinba
waxyaaba ama waxa ka jiraay ma aha tii aan rabna ma aha leanno waxbarashada waxaa la dhahaa oo saxda waa tacliimku waxa lagu dhaw luqada carabiga ijraa'i waaye waa maxay iijaad muwaadin saalix qofku hadduu dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacad ka baxo oo aanu ahayn muwaadin fiican waxbarashadii macna ma samayn leanno waxbarashada waxaa dadka wax loo baraa inay soo saarto good citizenship ama good citizens dad fiican muwaadiniin saalixiin faxiina idin sadarteed waxaa arkaysaa masalan anigu waxaan ka mid ahaa ciyaalkii ama dhalinyaradii markii oo ay yaraayeen xilligii kacaanka iyo dowladdii militariga oo iskuullada la geeyaan aan ka mid ahaa laakiin iskuulladii dowladdii militarigu ay furto meel kasta tuulo kasta ay ka furtay soo ma saarin good citizen yani muwaadin fiican ma soo saarin sababtu waxay tahay maba nolol sheegi jirinba yani waxaa laydinka rabaa oo waajibka idin saaran wuxuu yahay dalkiinu waxa iyo waxaasuu idinku leeyahay waxaasina waa qalad noloma sheegin sababta aan nogula sheegin waxay ahayd waxaasi waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka waajibaadka iyo xuquuqda oo muwaadinku ilaashanayo dastuurna ma jirin markii xero geelayaan ku nooleen geelayna sida caadiga way soxoogtaa marka waxaan rabnaa inaan taas ka baxno u gudubno dowlad alqaanuun wa dastuur wal aqli in loo gudbaa la rabaa marka faa'iidada uu leeyahay waxay taaba war waxbarashada inaan iska waraysanay bixaddi daatiha ayaa faa'iido ah